السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena live transfer update sheekooyinka ugu dambeeyay muuqaalka midkii ka horreeyay kusoo qaadanay ayaan sii dabagalaynaa kooxda Newcastle waxay walaac ka muujinaysaa helista xaaladda Benjamin Sesko sida haatan shabakada caankeeda The Mirror live reportingkeeda ay ku sheegayso saadarta optionska badsanayaan ciyaaryahanka lagu magacaabo Nicolas Jackson oo ciyaara kooxda Chelsea ay ku darsadeen liiska ciyaartoyda weerarka ee baadigoobka ugu jira ninkii Sesko ahay laba dalaba miiska u saaran waa inuu aqbalaa dalabka Newcastle ama dalabka Manchester United Newcastle isbuuc hore ilaa hadda ciyaaryahankan jawaab ka sugayaan soo kale tan markii hore waxa la projectiga Newcastle ku qanacsan yahay Sesko okay ku yahay laakiin go ahead kooxda ma uusan siinin Manchesterna sheekadu waa ka warqabnaa internal waa soo dhaaftay hadda ciyaaryahanka dalab u gudbiyeen oo ku aadan ma nagu soo biiraysa saadarta markii up to Sesko asaga go'aan kan inuu Manchester United doorto inuu Newcastle doorto saadarta hadii mar ay noqotay kala doorasho Newcastle waqti badan ma haystaan hadda waxay doonteen ninka lagu magacaabo Jackson oo Chelsea hore soo dhigeen 100 milyan lacagta pound-ka ah lagu qiimeeyay laakiin Newcastle waxay aaminsantahay almost 70 milyan oo pound meelahaas inay ku heli karaan Nicolas Jackson Chelsea xataa dana ugu jirta Jackson dabcan laga qaadanayaa sheekada markaa waxay noqonaysaa Jackson iyo Sesko mustaqbalkooda isku xiran hadii Man United Sesko qaadato Newcastle waxay dafaysaa ninka lagu magacaabo Jackson ay qaadanaysaa Man United hore Jackson waa la xiran laakiin hadda waxaa muuqata inay diiradda saarayaan ninka lagu magacaabo Benjamin Sesko garta ma gooya garta ana goona Newcastle Jackson qaata Newcastle Manchester United Sesko ka qaataan Liverpool Alexander Isak hadda faan waa isku dhamaatay marka sida hadda muuqato sheekooyinkaas la karkarana ugu dambeeyay wixii kale soo kordhay idinkan update-yada dabcan soo qaata comment-yada hoos noogu wadaaga saaxiibayaal Chelsea waxay sugaysaa kooxda RB Leipzig inay helaan bedelka Xavi Simons haddana ciyaaryahanka lagu magacaabo El Khanousi oo ka tirsan kooxda Leicester City wada xajood kula jiraan sida shabakada goal.com ee daabacaysa marka sheekadu waa dhowdahay Leipzig iyo Chelsea ceesho milix oo waxbay kala gataan saaxiibo waaye noo kaadiyeen intaan ka soo helayna bedelka Xavi Simons haddana goal.com waxay leeyihiin marka ninkaas lagu magacaabo ciyaaryahanka lagu magacaabo El Khanousi doorteen si uu soo qaataan soo kale tan xidiganteedana waxa la kooxda Leicester inuu sii joogo ma rabo maadaama Leicester ay Serie B ku laabatay ama Championship-ka ay joogto marka waxaan isleeyahay Bilal El Khanousi kala day kooxda heelan kooxda RB Leipzig isla markiiba ninkan waa soo dhisay awal wal talented waa Leicester halkan ka dhex muuqdo bandhigiis aad u fiican ciyaaryahankan waxa la marka asigana diyaar u inuu ka faa'iido dalabkan kaga imaan dhankaasi gudaha Bundesliga Jarmalka horena kooxda Leicester wuxuu kula guuleystaan ka warqabno horena wuxuu kamid ah ciyaartoyda kooxda Leicester si weyn kaga dhex muuqday xitaa Crystal Palace baadi goob ugu jirta El Khanousi waxaana lagu qiimeeyaa ciyaaryahankan ay ku soo qaateen 4 milyan lacagta euro xilli ciyaareedka kaga soo qaateen dhankaasi gudaha Belgium-ka naadiga Genk haddana waxa la ciyaaryahanka Maroccan-ka ee wuxuu u ciyaaray xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaalay 37 kulan oo kooxdiisu u ciyaaray 3 gool oo shabaq gaarsiiyay dhinaca kale tan 6 caawin uu sameeyay inkastoo Serie B ay ku laabatay waxaa loo doortay mid kamid ah ciyaartoyda dhankaas iyo Belgium-ka ugu fiican waliba Belgium Young Player of the Year loo doortay xilligii uu joogay dhankaas iyo kooxda Genk haddaba xidiganteedana waxaa lagu qiimeeyaa saaxiibada qiimaha badan lacag gaarayso ilaa 50 milyan oo euro waana lacag ee kooxda RB Leipzig bixin karta si la soo daabacay marka Leipzig waxa leeyahay El Khanousi doonteen si dabcan booska Xavi Simons uu galo waa hada heen training kan soo qaadana saaxiibayaal dhinaca kale kooxda Barcelona xuja horta labo waa keenan ciyaartoydii Rashford iyo gool haya gaarsiiyay laakiin diiwaangelintoodii wadadii loo marin lahaa qaabkii maxaa loo baahan waa in ciyaartoy la gadaa waa in farsamo kale la sameeyaa waa in kooxda dhaqaale dheeraad uu soo galaa saadartay majalada caanka gool.com warbixin ka daabacday ku aadan sida Barcelona ay ku diiwaangelin karto labadan ciyaartoy safarka Asia markii laga soo laabto bisha December bartamaheedana uu bilaabanayo La Liga Spain ninka lagu magacaabo Rashford ama ay kaga soo qaateen Manchester United gaarsiin waa ka warqabnaa 30 milyan oo euro waxay kaga soo qaateen dhankaas iyo kooxda Espanyol waana laba ciyaartoy oo tayo wanaagsan oo kooxda caawin doonaan saadartay diiwaangelinta labadan ciyaartoy waxaa qasab in loo hoggaansamo nidaamka loo yaqaan 1-1 rule oo La Liga Spain u yaalo Barcelona waxay sameynaysaa marka arrimaha ugu horeeya oo ay kamid yihiin ciyaartoyda qaarkood inay kaashaan sida waxaa kamid ah leedahay marka la fiirsho kale to aruuqo hadii uu soo gasho lacagaha ay ka helaan way ku diiwaangelin karaan labadan ciyaartoy sidoo kale tan safarka gudaha Asia lagu aado Barcelona waxay rajaynaysaa almost 20 milyan oo euro inay ka helaan kadibna lacagahaas ay u isticmaalaan dabcan diiwaangelinta ciyaartoyda waxa kale oo jirta yar lagu magacaabo Virgili ayaa asigana saaxiibada qiimaha badan la kaashaya wiilkan waxa la marka la fiirsho xitaa lacag badan hadda lagu ma kaashay lacag iska yar ku kaashayaan si ay wax u helaan sida la soo daabacayo shabakada Mundo Deportivo waxay Jan Virgil oo 19 jir qandaraaska Barcelona kula jiro wuxuu ku eegay 2027 waxa lagu wadaa kooxda Mallorca in laga iibiyo mar dhaweed waxa la dabcan 5 milyan 10 milyan meelahaas ee loo gaaray Girona xitaa baadi goob ay ugu jiraan adi qaraab noocaas la sameeynaa si dabcan Felix ciyaartoyda uu rabo Rashford iyo Garcia lagu diiwaan geli markuu bilaabanayo
horyaalka Spain soo kale tan Barcelona safarkeedu waxay iska wadataa gudaha Asia ee joogta 2 kulan ugu dhiman markay kulamaas soo dhamaadaan kadib aan sugan doonaa wixii ka soo bixi doona iyo warar kale iman doona dhinaca kale saxiixda rasmiga ah haatan la diiwaan geliyo waxa qaybkee waa official kooxda Roma soo bandhigeen ciyaaryahanka lagu magacaabo Wesley oo dhankaasi Filimangi ay ka soo qaateen wuxuuna ku imaaday 25 milyan lacagta euro iyo 5 milyan ee gadaal ka bixin doona difaacan garabka midig ka ciyaaro bisha September ayuu noqon doona 22 jir wuxuu kamid ah ciyaartooyda kooxda Filimangi ugu bandhiga fiicnaa Carabao Cup-kii dhawaan soo idlaaday 5 sano contract Wesley Franka qalin ku duugay Brazilian-kan wuxuu ku farxsan ku beeritaan kooxda Roma sidoo kale tan xidigan tayada wanaagsan kooxda Roma waxay siin doontaa Janis oo si toos ugu ciyaarayo dhinaca kale tan wuxuu noqday ama uu qaadanaya haatan numberka 43 ayuu qaadanaya wuxuu noqdo ciyaaryahanka 46 ee taariikh ahaan kooxda kubadda cagta ee Roma daawadayaasha qiimaha badan u ciyaaro Brazilian macnaha Brazilian-kii 46 ee Roma u ciyaaro noqona laakiin numberka 43 ayuu qaatay sida rasmiga ama warbixinta rasmi lagu soo daabacayo dhinaca kale ninkii Douglas Luiz Juventus Galgalunusi wuxuuna sheegay qaladaadka uu galnay waxaan la aqbali karin ganax kasta kooxda ee dul dhigtana uu aqbalayo sababtoo ciyaaraankan xilliga Bariisiga markuu u dhamaado fasax u dhamaado waxay inuu kooxda ku soo laabto tababarka imaado caafimaad tijaabada laga qaaday kadib uu kooxda la aamintay hadii la gadanayo hadii kale tala kooxda uu qayb ka aado sadarta ciyaaraankan wuxuu sameeyay wax loo dul qaadan karo ma aha waana xidig hal sano ka hor kooxda Juventus ay ka soo bixiyeen 50 milyan oo euro naadigana falab ku noqday hadda qaladkiisa uu qaatay warqad rasmi ah gelino kooxda soo diray wuxuuna imaan doonaa haatan kooxda Tudor si loogu ogolaado tababar inuu la qaato macna Tudor teamkiisa kadibna apologize-kaas uu bixiyo tababarka intuu qaadanayo haduu helo koox iibsatana waa la gadaa hadii la waayana kooxdu jooga laakiin arinta uu sameeyay arin la aqbali karo ma saaxiibayaal qaladka ka dhacayaan kan hadda la gelino dhiiba la karaale gelinta ganaaxiisana meel ay u yaalaan waxaan kala soo qaadan karnaa sheekooyinka kooban transferka Serie-A qusay qaybkii naadiga Napoli u baan ciyaaryahan garbaha ka duulo markaan waxay doonteen xidiga tayada wanaagsan ee Norwegian-ka u ciyaar naadiga RB Leipzig Anthony Nusa oo ay ka gudbinayaan dalab gaaray 35 milyan oo lacagta euro Napoli waxay ku goobeen qaadashada Indoya ka warqabno dhankaas wuxuu aaday kooxda Nottingham Forest Indoya ku biiray haddana Napoli 35 milyan oo euro Leipzig u geenaysay kaga soo qaataan Nusa waxa waaye nin banaanka isku dhacawa inkastoo kooxda Jarmalka ciyaaraankan ku qiimeeyay 50 milyan oo euro haddana waxay sugayaan Napoli jawaabta ay ka helaan lacagtan ay gudbiyeen 35 milyan hadii laga aqbalayo sida Sport Media Sad ee daabacayso wiilka Nozana dhawaan ayuu noqday 20 jir gaar ahaan bishii Abriil soo kale tan xulkiisa uu ciyaaray 15 kulan 5 gool shabaqu gaarsiiyay 7 caawin uu sameeyay soo kale tan ciyaaraankan kooxda kala Bruges ay ka soo qaateen hal sano ka hor kooxda RB Leipzig markaas ay ku soo qaateen 22 milyan lacagta euro xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaa Nusa wuxuu ciyaaray kooxdiisa 35 kulan 5 gool shabaq gaarsiiyay 8 caawin uu sameeyay marka Leipzig waxay u sameeysantaa business waxaan sugan doonaa dalabka Napoli ee gudbinaya sida loo aqbalayo iyo jawaabta ka soo bixi doonto dhinaca kale kooxda kubadda cagta Everton ayaa sheegtay inay ku guuleysan karto loolanka loogu jiro Jack Grealish kaasoo dabcan kooxda Manchester City ee suuqa soo dhigeen waliba waxay ku rabaan Everton qaab amaah ku qaataan mushaaraadkiisa Ingiriiskan ay bixiyaan inkastoo Napoli iyo West Ham kooxa kale xidigan ay rabeen haddana waxa la Jack wuxuu doorbidaa ku beeritaanka dhankaasi kooxda Everton wuxuu aaminsan yahay haduu ku beero kooxda David Moyes uu hogaamiyo inuu waayis ciyaarad soo ceshan karo sidoo kalena u soo reegari karto xilli ciyaareedka markuu soo ilaalay xagaaga dambe xulka Ingiriiska inuu kala qayb qaato koobka adduunka oo Thomas Tuchel ciyaaraankan hore wuxuu u sii digniin ku aadanay isaga tag Man City waxa ku biirtaa koox joogta u ciyaaraysid kadib Janis ku ciyaarta ay helaysaa kan waa 29 jir soo kale 100 milyan oo bond kooxda Man City ku soo qaateen 2021 xilligaas Aston Villa uu joogay hadda sheekadaas ma jirtay amaahdaasi ku rabaan inay ku qaataan Everton Jagna asiga dabcan door bidaay ku biiritaanka Everton sida rasmiga ee la soo daabacay dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa sheekooyinka kooban ee transferka waxa qaybka Gianluca Donnarumma wuxuu raadsanaa halkii uu ku biiri lahaa sababtoo Paris ma ka go'aantay goolayahan inay ka tartaan sidoo kale tan haatan heshiiska shakhsiga waxay la gaareen Lucas Javillier oo ka tirsan kooxda Lille inkastoo marka hore 40 milyan oo euro laga diiday Paris waxay diyaar u tahay lacagta inay kordhiyaan si uu soo qaataan goolaha Javillier kadibna ay kaga maarmaan Gianluca Donnarumma sida goal.com ee daabacayso Gianluca Donnarumma oo 26 jir waxa booskiisa galayo 23 jirka lagu magacaabo Javillier kaasoo asagana heshiiska shakhsiga la gaaray Paris Saint-Germain dhinaca kale tan Gianluca Donnarumma waxa la leeyahay noqoto Manchester United Manchester City Chelsea Galatasaray iyo sidoo kale waxa la qaar kamid ah kooxaha Saudi Pro League ee 26 jirkan baadi goob ugu jiraan qandaraaska kula jira kooxda Luis Enrique hogaamiyeen 12 bilood kaliya kaga harsan saadartay marka Paris Gianluca Donnarumma waa kaashaysa
oo waxay diideen ciyaaraankan sidii Kylian Mbappe oo kale xilli ciyaareedka hore si free kaga tagay haddana inay kaaneeto xagaaga dambe si free ay kulmeen. That's why markay ay diyaar u yihiin in lacag kasta aqbalaan ama suuqa ay soo dhigaan sida la soo daabacayo. dhinaca kale shabakada caanka ESPN waxay daabacaysaa Liverpool wax tilaaba ma qaadayso oo ku aadan dhanka Alexander Isak ilaa ay kasoo dhameystiraysa lacag ay u baahan ciyaaraankan inay kooxda Newcastle miiska u saaraan. kooxda Slot oo hogaamiyo 300 milyan oo bond ku dhawaad ay qarash gareeyeen saan ka warqabno. dhawaan waxay iibiyeen maalmo ka hor ninka Luis Diaz oo ay ka siiyeen kooxda FC Barmujan 65 milyan lacagta boonka ah. haddana waxay rajeynayaan ciyaartooyda kale ee Darwin Núñez iyo sidoo kale Harvey Elliott iyo Federico Chiesa inay kaashaan kadibna markii ay kasoo gasho lacag ku filan ee miiska u saaraan kooxda Newcastle lacag gaarayso 150 milyan oo lacagta boonkaasi ay kaga soo qaataan Alexander Isak. Liverpool degdeg kuma jirto, Isak cid ku haysata malaha, koox kale hadda 150 kaas diyaar leh ma jirto. dalabadii Saudi Pro League uu iska diiday. Newcastle weerarkooda raadsanayaan ama Jackson soo qaataan ama Hackinson ninka lagu magacaabo Sesko. Liverpool lacag isku soo aadinaysa kadib le hal mar ay jug ku siin doonaan kooxda Newcastle lacagta Isak oo gaarayso 150 milyan oo lacagta boonka. marka maybe it takes time waqti inay qaadato waa laga yaabaa, bal aan wada sugana saaxiibayaal wixii ka soo kordho arki doonaa. waa sheekooyinka ugu dambeeya training sameynaa soo qaadanayna. dhinaca kale waxaa soo qaadan karnaa wararka kooban qayb ka ah tababaraha kooxda Manchester United Robin Amram wuxuu diyaar u yahay wiilka mustaqbalka wanaagsan ee qadka dhexe ka ciyaara Toby Collier inuu amaah ku dhiibo maadaama wiilkan adagtay xilli ciyaareedka cusub Janis inuu kooxda ka helo. sababta ugu weyn waxay tahay Manchester Europe ma ciyaarayso, ciyaaraha ku yar Premier League kaliya shaxaatame Carling Cup September dabiiqada bilaabanay, FA Cup Janaayo bilaabanay, squadka marka ciyaaro badan ma dheelaan tartamo kala duwan. sadartay marka Toby Collier wuxuu macalinka diyaar u yahay inuu Janis siiso u kabco 22 jirkaan dabcan kadib inuu ku soo faa'iideysto amaahda lagu dhiibay. waxaa laga yaabaa qaar kamid ah kooxaha Championship ka ciyaaraan in amaah lagu siiyo ama qaar kamid ah kooxaha levelka dhexe Premier League ah, laakiin mabda'iyan wuxuu soo jeediyay Amram in wiilkan aan lagu goyn amaah lagu fasaxo Collier oo xilli ciyaareedka hore dabcan ciyaaray 17 kulan Premier League kooxda Manchester United. marka waxaan suganaa xitaa wiilkan iyo sida Robin Amram go'aan ku qaata maamulku hirgelin doonaan kadibna qaabkaas amaahda lagu diri doono saaxiibayaal. aqyaar guud ahaan barnaamijkan intaas soo nooga eegaya xasuusin haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar waa inoo kulan dambe hadduu alla idmo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.